markabka Nova oo siday dad tiradoodu kor u dhaafayso 425 qof oo isugu jira dad u dhashay wadanka Yemen, Somaliland, Soomaaliya ayaa soo gaaray dekedda caalamiga ee magaalada Berbera. dadkaas oo ah dad qaxoontiya oo ka soo barakacay dagaalada iyo dhibaatada ka socota wadanka aynu jaarka nahay ee Yemen ayaa abaaray 6 subaxnimo ee saaka soo gaaray dekedda caalamiga ee magaalada Berbera. mas'uuliyiinta dawladda iyo hay'adaha u xil saaran qaabilaadda dadkaasi qaxoontiga ee dhibaataysan ee ka soo barakacay wadankaasi Yemen ayaa ku soo dhaweeyay dekedda magaalada Berbera. imka waxaan joognaa dekedii weeyaan markabkii agtiisa baan joognaa. waxa uu sidaa oo manifestadu ku qoran tahay waxa weeyaan 427 waxa si aan mar walba aan ogno xaqiiqa inayna tiradu inta ahayn ee ay ka badan tahay sababtoo dhalinyarta lama soo qoro caruurta lama soo qoro taas qoraalkeega oo sugan dib insha Allah taala aan ka sugu doonaa 425 iskugu jira Yemeniyiin, Soomaaliyiin oo Soomaaliya iyo Somaliland iyo Ethiopia dhammaantood dadkan soo barakacay ama qaxoontiga waxaan ku soo dhaweynaa si naxariis leh annagoo iska eegayna caafimaadkooda, amnigooda iyo sida ay hadba xaaladoodu tahay. dhammaan dawladda Somaliland ay gacmo furan ku soo dhaweynayso madaxa qaranka Somaliland Axmed Maxamed Siyaar madaxweyne wuxuu na amray inaan ku soo dhaweyno si naxariis leh barakacayaasha ama dadka qaxoontiga annagoo iska eegayna sharcigana marinayna warqadahooda iyo qaxoontigooda ilaa intay naga dhaafayaan iyo cidii qaxoonti isku dhiibaysa.